ayaan Cumar Maxamed Wawax waa gabadh Soomaaliyeed oo ku xanuunsanaysa magaalada Woodwood ee gobolka Cayn waxayna la ildaran tahay xanuunka asiibay caloosha iyadoona 3 cisho mar caloosheeda laga sii daayay biyo aad u fara badan. ayaan Maxamed Cumar Wawax ma laha hanti waa qoys dan yar ah ma haystaan nolol maalmeedkooda hase yeeshee culimada degmada Woodwood oo booqday waxay u soo bandhigeen ummadda Islaamka oo ay ka codsadeen inay soo caawiyaan si dhakhtar loogu qaado. ayaan Cumar Maxamed aan ku soo booqanay magaalada Woodwood guriga yar ee buushka ayaan Cumar Maxamed iyo hooyadeed Saafi Ducaale Cali ayaan ku soo booqanay waxa dhiban oo aan soo booqanay ayaan Cumar oo xanuun Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu keenay awoodii ka qaaday ayna la dhiban tahay xanuun kaar iyo dhib ay la qabto fara badan ayaan soo booqanay maanta. gabadhan iyada waxa ku dhaxan caloosha waxaa ka galiyay biyo muddo fara badan oo imika sanad iyo siyaada ayaa caloosheeda biyo ku fadhiisanayaan. calooshu markay qarax ku dhawaato ayaa dhakhaatiirtan farmasiyaasha iyo MCH ayaa biyaha ka shubaya. biyaha marka muddo yar oo dhowr casho ay ka way biirayaan haddana waa buuxsamaysaa haddana biyahaas laga shubaya. gabadhaasi xanuunka way ku dhiban tahay isla markaana dhaqaalo ay dhakhtar weyn ku aado ma ay hayso. waxaa la joogta hooyadeed oo aan itaal ku dhaamin oo aad u daa oo aad arkaysaan iyo ayaan oo aad iyo aad u dhiban tan jirkeedina uu dhamaaday xanuunka dartii 3 ubad oo carruur oo ay haysatana ayadana waxa weeye cid ku maamusho oo kaga war haysa ma jirto. aabahoodna horay u kala tageen marka waxa weeye gabadhaas ayaanu maanta si naxariis leh aanu maartay meesha ku soo booqanay in badan dadka ehelka ee magaalada aba u gurmanayay oo wixii ay liqi lahaayeen siinayay oo u ururinayay dhakhaatiirtuna biyaha inay ka saaraan bay ku caawinayeen. marka sidaa darteed dhammaan dadka muslimiinta ehelka sama jecel dadkaas aad u tabaalaysan oo kala caawiya caadada u lahaa hadday xigta yihiin iyo hadday dadka islaam ehelo arkaya ay yihiin ama muslim ay yihiin oo islaamnimo ku danqanaya hadday yihiinba waxaan idiin soo bandhigaynaa gabadha dhibaatada haysata walaalayaal inaad ka soo qayb qaadataan oo gabadhaas waxay u baahan tahay meel dhakhtar lagu geeyo oo dhaqaale looma hayo. dhaqaalahaas ayay u baahan tahay meel loogu qaado. qof kasta oo muslim oo walaalkaya oo arka oo maqlaya ayaan u soo gudbinaynaa si naxariis leh. rasuulku wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. ilaahay adoonkiisa waa u kaalmeynaya waa u gargaaraya inta uu adoonku walaalkiisa kale ee jilcsan uu u gargaarayo. marka waxa weeye walaalayaal inaan soo naxariisano ayaa loo baahan yahay. waxaan soo booqanay gabadhaas ayaan Cumar Maxamed oo aad iyo aad u xanuunsanaysa xanuunkaasi muddo sanad iyo dheeraad uu hayay. xanuunkaas oo xanuun aad iyo aad looga naxa oo waxa weeye biyo galaya caloosheeda kadibna biyahaas oo marka ay caloosheeda galaan laga sii deynayo inta biyahaasi ay ku jiraan caloosheeda ama biyahaasi ay laga sii deyn ma gamcayso ma fadhiisanayso ma seexanayso. waxaa la rabaa marka dadka muslimiinta ah waa reer dan yar ah oo aan waxba haysan oo meel waxa weeye ay wax ugu qaadaan dhakhtar waxay wax ugu qaadaan aan haynin. sidoo kale wixii anagu aanu awoodi karinay imaam deegaanka Woodwood waa ugu kaalmaynay hadeerna waa u sii dadaalaynaa insha Allah. marka waxaan rabnaa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ee wanaagsan inaynu gabadhaas la soo caawiyo oo waxa weeye nabiga sallallahu alayhi wa sallam waa kii u lahaa isu naxariista alle subxaanahu wa ta'ala baa idin naxariisanayeen. xanuunkaasina sanad iyo 3 bilood buu hayaa waana biyo jiif iyo joog midna ma aqaan asaan fadhiya ama waan taagnaa mana socon karo mana jiifsan karo inay soo caawiyaan oo waxaan dhakhtar ku tago ilaahay baa dhakhtar le ilaahay baa wax daweeye ay ii soo diraan oo ay igu dadaalaan.